maanta waxaan dhalinyarada iyaga oo Tianis Group ka tirsan teamka shaqeynaya waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in aan xogaagii mushaharka ama xogaagii yara aan qaadanaynay aan u garanno dadka walaalaheena halka xanuunsanaya aan xanuunkaasi aan kala qayb qaadano oo aan isu abaabulno in aan wixii tabartayaga aan maaragtay aan la qaybsano aad baan ugu faraxsanahay arintaasi inta kaliya ma aha oo inta ugu horeeyaan bixinayna ma aha laakiin insha Allah waxaan rajaynaynaa inaan barnaamijyo badan aan kala qayb qaadan doono isbitaalka iyo wax walba oo wixii tabartayaga aan barnaamijkaas aan kala soconayna anaga ka team ahaan waxaan nahay team shaqeeya oo dhalinyaro ah oo maartay shaqo abuur sameeya oo dhalinyarada kale ay shaqeeyaan oo maartay barnaamijkaasi naga caawinaya in dhalinyaro badan ay tahriibi lahaayeen ama dhalinyaro badan oo baaga muddo ah oo ay ku fikiri lahaayeen waxyaabo badan in maartay aan maartay shaqo abuur loo sameeyaa shaqeeyaan oo maartay dalkooda iyo dadkooda ay anfacaan sida hadda maanta oo kale halkan aragtaan waxaan halkan soo gudbiyay wax kale ma aha waxoogaagii yaraa ay qaadanayay weeyay garteen walaalahooda maartay inay la qaybsadaan oo ma aha wixii ugu horeeyaan soo gudbinayna laakiin waxa weeye waa inta ugu horeeyay way aan u garanay weeye marka dhammaan dhalinyarta iyo cid walba ay ka qayb qaatay barnaamijka waxa weeye waan u mahadcelinayaa magacaygu waa Barre Maxamed Jaamac waxaan kamid ahay dhalinyarada ka shaqeysa Tianis Gaalkacyo runtii maantay waxaanu halkaan u soo booqanay aan ugu nimid isbitaalka guud aan u nimid inaanu maartay walaalaheena dhalinyarada ku xanuunsan isbitaalka guud ee Gaalkacyo inaanu soo gaarsiino alaab yar oo maartay aanu dhexdeena si volunteernimo ama mutadawacnimo aan isaga garanay xogaag yar aanu qaadanaynay inaanu maartay ku dhiidhinay inaanu baahi jirta oo tiro badan aan isbitaalka ku aragnay inaanu maartay aanu wixii aan qaadanaynay insha Allah bil kariim aynu qayb kamid ama inteeda ugu badnayd baan runtii aan inta isku dardarnay aanu maartay ku sameeyno inaan go'yaal iyo waxyaalo badan ama barkimo iyo wax isbitaalku u baahan yahay oo muhiim ah inaanu maartay ku soo iibino runtii aad baan ugu faraxsanahay inaanu si mutadawacnimo bulshadeena aan ku caawino wayna naga go'an tahay in loo hiiliyo dhalinyaro kacaan oo waxa weeyaan ay u kacaan dhalinyaro waliba muxsiniin ah inay gartaan inay maxaa la oran jiray waxyaabaha asaasiga barkimaha iyo maxaa la oran jiray inay intii soo aruuriyaan ay ugu deeqaan runtii wax wanaagsan way oo wax bulshada inay kaga dayan kadho qof kasto oo jecel bulshadiisa inuu wax u qabto uu kaga dayan karo weeyaan runtii aad baan waxa weeyaan ku mahadcelinaa oo ku ammaanantihiin oo ku sharfantihiin cid kasto waxa weeyaan jecel bulshada inay wax u qabatana tusaale ayaa u tihiin waan dhiirigelinaysaa dhamaanteen maanta waxaan ku faraxsanahay anoo joogo isbitaalka weyn ee Mudug la guddoonsiiyay alaabtan run ahaantii waxaan ahay aniga bukaan waxaana la ii keenay alaabtan ayaana loo keenay isbitaalka dhamaantiis waana loo qaybiyay waxaana loo qaybiyay shirkadda la dhaho Tianis iyo dhalinyarada ayaa noo qaybisay halkan aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay run ahaantii maanta dhalinyarada ee Soomaaliya inay is abaabusho oo ay nasiyaan alaab anakoo bukna oo xanuunsan inay wax nagu caawiyaan aad iyo aad ayaan u jecelahay run ahaantii waan soo dhaweynayaa waxaan leeyahay hambaliyo anigoo ah supervisorka surgical ward maantay dhalinyarta Tianis waxay guddoonsiinayaan alaabo aad u qiimo badan alaabahaas ay ka mid yihiin barkimo joordiyaal go'yaashii lagu gogol lahaa iyo waxyaabo kale oo aad u fara badan run ahaantii dhalinyartan waan soo dhaweynaynaa ma sha Allah waa dhalinyaro isxilqaantay waxaan jecelnahay dhalinyarta kale oo saas oo kale inay isku dhexqaamaan maadaama ay alaab aad iyo aad u qiimo badan bukaankoodii jiifay run ahaantiina bukaanku waa muhiim in loo keeno alaabo kala duwan in la caawiyo in wax badan loo qabto waa muhiim dhalinyartana waxaan leenahay soo dhawaada dhalinyarta kale oo rabta inay macnaha caawiso bukaanadana waa soo dhaweynaynaa hal abuurkan runtii muhiimka ah ay sameeyeen dhalinyaradu iyo groupkan ayaan u hambalyeynaa kamana soo hartay hal abuur waxa loo yaqaan binaadamka waxa la isku dhaafay waxa la yiraahdaa hal abuur qof kastaba wuxuu heer ku gaaraa binaadamka waxa weeye intuu maskaxda ka shaqaysiyo iyo waqtiga uu galiyo labadaas la sheega qofku markuu maskaxdiisa degan tahay oo nolol fiican hayo deganaansho hayo ayuu hal abuur badan sameeyaa marka waan ku dhiirigelinayaa runtii way mahadsan yihiin hal abuurkan ay sameeyeen waqtigan ay geliyeen inay hawshan sameeyaan isbitaalka iyo bulshada sameeyeen
annaga wasaaradda caafimaadka iyo maamulka isbitaalka waa idin soo dhawaynaynaa waan idinku mahad celinaynaa runtii farxad weyn waxaa noo ah in bulsho kasta caalamka ka jirta ayaga ayaa isku tashada marka dhalinyarada muxuu ahaa ka socota magaalada Gaalkacyo oo waliba bahata la yiraahdo TNS Group oo inu kusoo saaciday khayrka ah inay bilaabeen adeeg bulshada waxtar u ah inta misanaysa ku ekaane ay misna hadiiban ayagu waliba cusub oo cagaha dhulka dhigin inay misna bilaabeen danta caamka ah inay ka qayb galaan oo wixii yaraa soo galay misna meelihii ugu baahi badnaa oo isbitaalkeena weyn inay u soo sameeyeen muxuu ahaa qorshaha kan marka adeega maanta ay bilaabeen waxay noo fududaynaysaa hadda ka anagu waxayo inaan ku baraarugno aan ku dhaqaaqno bukaanku inuu yeesho ala adeeg isbitaalku diyaariyo oo sterile oo sayidis waxa qofka laga bedelayo markii wasakhowdo markasta loo gogolayo marka fikirkan groupkan ugu soo saaciday aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa ayadana bulshada inay ogaato waa muhiim oo adeegaas waxtar buu inoo leeyahay in ayagana muxuu ahaa aynu runtii aan gacan ku siino businesskooda inuu horumaro customer hadayna u sameeyeen businessku way istaagaya dan adeeg hadda isbitaalku helay ma la helayo taar waxa iyaduna muhiim bay inoo tahay saas caalamka loo wada shaqeeyaa marka aad iyo aad baan ku hadlayaa magaca bahda yar isbitaalka waxaan ballan qaadaynaa tabaca keenteen inaan sida caadada noo ahayd baan u xifidno dadka xaq u lehna ay isticmaalaan waa arrin iyaduna muhiim ah aad iyo aad baa mahadsantihiin wa salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh